بسم الله الرحمن الرحيم معاميشة إن شرفت له كحرا شركة ضل ريل استيت ولا ليال سود وهذا ومركلة يوم مقال كلا ولا ليال مقال كمان تا وحكو سابسين هاي دول إيبه ولا ليال بوس بنان ودول آد وين أو هدي سكر الله دقو لقد دقي كرلا بوس دول كإيبك واكنا وعماش أي حد كاميرا أي هيسو ولا ليال كان إيبك waxa uu leeyahay wado aad u weyn marka dhul ama guri la gadanayo waxyaabaha laga fiiriyo ee ugu horeeyo waxa kamid ah xagga wadooyinka marka walaalayaal dhulkan wuxuu isku darsaday cabirkiisa oo waasac ah iyo wadada uu saaran yahay oo ah wado weyn oo sodon ah walaalayaal sidoo kale hadii xataa dhulkan la kala gooyo oo laba boos laga dhigo qaybtiba ama booskiba wuxuu noqonayaa mid cabirkiisu uu weyn yahay oo waasac ah walaalayaal waa dhul hadii loo baahdo xataa laga dhigi karo afar nus ama afar qayb oo qaybtiba ay qaban karto fillo wadiisa waa aragtaan dhulka sidoo wado weyn u saaran yahay wadadan waasac ah ayuu haystaa walaalayaal xaafad ahaan xaafadda uu ku yaalo waa xaafad kamid ah xaafadihii hore ee magaalada وحافظ مدفق للدجناء وريهاس أيا كسو هرجيدو حافظ إن حافظ هرتها وحاكو جران كرتا جيدها كيالو جيدها سوين أيا وضد هريره هذا كيالان دول كيبكا ولا لي على السوق كلا ودول تاج أو هدي أديس تكتعرف بوحس إيوه عن كعب بحنين وديس السوق كلا ونظيف بيجح يوحس ملها ولا لي على سود وهذا وحن جودك جلا يا حكتا دول كان إيبك أو دمستر إن شاء الله تعالى كبوج شوعا هدي عن كوب الله ماشي وكيا لقوا عن فهفاهيو ولا لي على دول كان وحكيا لمجالة مقدشة نه وحوجسي لا دجمة هلوا وحكمت هاي دجموين كواوين مجالة مقدشة دجموين كمدفق كهر للدجاج magaalo naqatay walaalayaal degmada Hilwaa wuxuu uga sii yaalaa dhulkan iibka ah wadada Cabdiwaayeel sidoo kale walaalayaal wuxuu ku dhow yahay wadada kale ee ka timaado laamiga Balcad ee loo yaqaan wadada walaalaha marka aad joogto meesha ay iska gooyaan wadada Cabdiwaayeel ee sodonka ah iyo wadada walaalaha ayaa waxa u soo leexanaysaa marka ka timaado dhanka laamiga gacantaada bidix waa booska labaad sidoo kale walaalayaal meesha uu ku yaalo dhulkan iibka waxa loo yaqaanaa Baqaar Faysal isgoyska marka joogto ayaa dhanka qiblada soo aadaysa waxay caan ku tahay oo ku yaalo baqaaro waaweyn walaalayaal sidoo kale kaama dheero suuqa weynaa ee degmada Hilwaa walaalayaal booskan meesha uu ku yaalo waa meel deegaan iyo mustaqbal intaba ku fiican xagga cabirka hadii aan ka hadlo walaalayaal wuxuu ku fadhiyaa dhulkan iibka ah 30 lagu dhuftay 20 ama taranta barfinti runtii waa cabir waasac ah aad u weyn hadii laga dhigo laba boosna waxa loo kala jari karaa 15 lagu dhuftay 20 maxaa yeelay wadada weyn ee Cabdiwaayeel wuxuu ka haystaa 30 mitir soddonka ayaa loo kala jarayaa sidaas ayaa qaybtii waxay ku noqonaysaa 15 lagu dhuftay 20 boos ah marka soo dhawaada hadii la dhaho 20 30 ama finti bartarantana waa boos weyn baqaarada idin sheegay waa kuwaasa walaalayaal la soo dhawaada xagga cabirka waa heer sare afar nus oo kiiba uu yahay 7 bar 20 ayaa laga dhisi karaa marka waa fursad deegaan iyo fursad maalgashi intaba hadii aad doonto aad kireysan kartid hadii aad degaysid xadaarada guri weyn oo dabaq ah ayaa ka dhisan kartaa oo dhax ka dhis ah oo barxado iyo hoolal leh walaalayaal hadii aan ka hadla xagga qiimaha iyo lacagta lagu rabo walaalayaal dhulkaani waxa lagu rabaa oo kaliya 125,000 oo dollarka Mareykanka ah oo isku dhamaad ah waana macal dalaal iyo heshiis waxaa la yiraahdaa beec meesha ka bilowday kuma dhamaado
walaalayaal qiimaha waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah waa la idinka dhimayaa insha allahu tacaala lambarada meesha ku qoran nagala soo xiriira haddii aad maqan tihiin dhanka whatsappka ayaa naga soo wici kartaan faahfaahin dheeri ah ayaa idinka sii siinaynaa insha allahu tacaala walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka wadooyinka iyo jihada dhulkan iibka walaalayaal waa hal jid leh hal wado oo weyn ayaa hormarta gadaal waxaa uga dhagan laba boos kale ama dhul kale oo kan lamid ah dhinacyadana guryahaas ayaa uga dhagan waad aragtaan wadadan ayuu saaran yahay dhanka jihada haddii aan ka hadlo walaalayaal booskan ama dhulkan iibka ah waa galbeed ujeed wadada waxay ka martaa dhanka galbeed haddii aan walaalayaal u gudbo xagga dukumiintiga iyo sharciga dhulkan iibka ah waxa uu leeyahay dukumiinti saxan oo dhammaystiran kaasoo ah rasiid iyo sabarloog originaal ah maxamed siyaad barre ah sidoo kale walaalayaal warqadaha kale ee muhiimka ah sida canshuuraha iyo wixii la midka ah ay u dhammaystiran yihiin waxaa diyaar u nahay inaan dukumiintiga idiin geyno nootaayadii aad dalbataan si laydinkaga hubiyo sax ahaanshaha dukumiintiga insha allahu tacaala dhul ama guri dhammaan hantida maguurtada waxaa laga gataa dukumiinti oo marka ugu horeysa laga fiiriyaa marka dhulkan dukumiintigiisa waa heer sare waa dukumiinti nadiif ah sidoo kale haddii waddo laga fiiri lahay dhulkan waddo weyn oo 30 ah ayuu saaran yahay walaalayaal waxaa diyaar u nahay inaan idin soo tusino dhulkan haddii aad ku qanacdaanne qiimaha wixii macquul ah la idinkaga farageliyo insha allahu tacaala kadibna hawsha sida ugu quruxda badan leh la idinkugu qabto walaalayaal haddii aad dhul ama guri beeca ku leedihiin xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir nala soo xiriira sidan oo kale ayaa idinkugu beecgeynaynaa insha allahu tacaala sidoo kale haddii aad dhul ama guri ka rabtaan xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir nala soo xiriira waa idin helaynaa insha allahu tacaala dhulalka iyo guryaha aan hayno way ka badan yihiin kuwa aan soo gelino waxa la soo geliyo waa wax kooban marka nala soo xiriira qaabka wax u rabtaan noo sheega sida ugu fiican ayaa idinkugu shaqaynaynaa insha allahu tacaala ugu dambeyntii walaalayaal oo aad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallis Real Estate walaalayaal waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo saartaan gambaleelkan aad furataan idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha allahu tacaala sidoo kale Facebook iyo TikTok follow naga soo dhaha waa mahadsantihiin mar kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh